madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa gabi ahaanba qaadacay guddigii doorashooyinka ku-meel gaarka ah oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa lagu socodsiinayaa golaha wakiilada maamul goboleedka Puntland isla markaana la ogeysiinayaa xeer ilaaliyaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garyaqaanka guud ee dowlad goboleedka Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa qaadacay magacaabistii guddida doorashooyinka Puntland sida qoraalka lagu sheegay oo aan lagala tashan. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday magacaabistii guddida doorashooyinka oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ku magacaabay sida uu sheegay baalmarsan tahay dastuurka dowlad goboleedka Puntland oo dhigaya in madaxweyne ku-xigeenka aan lagala tashan. Talsan TV Cabdiqani Cali Faarax Burco.